saacada qiyaamadu dhici mayso ima bamaysa buu nabigu yiraahdo 10 calaamadood ba ka soo horeysa rasuulku 10 calaamadood oo 10 kaasiba waa fitanta waaweyn weeyaan fadakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabba وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خصوف خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب وآخر ذلك أبو النبي يقول النار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إلهي وحل لقوا قدنا يا دقال ماها وحبنها داني بقى القرآن ربنا نخرجته محان استعماله يا عربك وبلاش هدان ربا ما ركتانا إنا ذكر السماء وحان استعماله يا عربك وبلاش هدان ربا مسكيت كينا ما دوحان استعماله يا والله وحيك وبلاش هدان ربا إنا الصوم وحان استعماله يا واجرك وبلاش هدان ربا إنا الدعاء إلى هيبر وحان استعماله يا جمعه يا عربك وبلاش بلا العقبة لو قصي هدان ربا إيمانك إنا زياد سدنا ماشي إيمانك قال وقلبك وبلاش قلبك بلاش بلا العقبة القوسية قلبك وحبنت تجرك بين هذاك وقوم يمسن وقوم قلبك وحبنت النبيين ويري جرك بين هذاك وصلت باكو جرتا هذي تاسي هاجتنا جرك ودم با هاجاجي هذي تاسي حماتنا جرك ودم با حماني با نبي قلت أصلا وقلبك برسول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال صلى الله عليه وسلم bini aadamku uu socdaa caalamkuna uu joogaa bini aadamku uu socdaa maalintuu dhashay noloshiisa waxaa ku bilaabantay nuqsaan innaka waxaan moodaynaa qofku inuu korayo dadku waxay dhahdaan wallaahi ilmihii uu koray imisuu jiraa intaa buu jiraa uu weynaaday habeenka qofku uu adduunka yimaado ayaa waxaa ku bilaamaysa nuqsaan baa ku bilaamaysa
habeenka durba cimrigiisii bay ka go'an tahay saacaddii soo martaba cimrigiisii bay ka go'an tahay wiigii soo maraba usbuucii soo maraba cimrigiisii buu ka go'an yahay bishii soo martaba qofka cimrigiisay ka go'an tahay sanadkii soo maraba qofka cimrigiisuu ka go'an yahay inta qofku adduunyada uu marayana marka uu maro qofku socdo waad u fiirsan baabuur markaad wadatay wadada hayweyga aad saaran tahay buur baa meesha taagan waa dhaafi dhir baa meesha ka baxday geedo waaweyn waa dhaafi warshad masnac baa meesha yaalla waa dhaafi laakiin ninka reer baadiyaha ee weligii gaari aanan fuulin wuxuu u malaynayaa dhulku inuu socdo soo ma wuxuu leeyahay war buurtii way socotaayo qabta war dhulkii wuu socdaayo qabta war geedihii way dhaqaaqeena qabta waxaa la leeyahay may geeduhu ma dhaqaaqin adaa socda marka inakaa socona marka bini aadankan isagaa socda deedna markuu socodkaa uu bilaabay dariiqa uu markaa marayo nolosha adduunyadu waa dariiq la marayo weeyaan dariiqa sida baabuurka markaan wadanaba marna dhir marna beer marna warshad marna buur marna bannaan aan u ag marayno ayaa mar waxaad soo ag maraysaa farxad mar waxaad soo ag maraysaa maaragtani murug mar waxaad soo ag maraysaa cabsi mar waxaad soo ag maraysaa maaragtani nabad mar waxaad soo ag maraysaa faqri mar waxaad soo ag maraysaa khina mar waxaad soo ag maraysaa nolol marka dambena geeri baad ag maraysaa waxaasoo dhan jidkay taagan yihiin ogow yaku meesha way joogaan aday ku sugayaan adaa maraya markaa lidaalika u fiirso qofka bini aadanka xaalad baa la soo darsaysa xaaladdaasi maahin wax daa'ima maaha waa wax noloshiisa keliya mar soo martay deedna uu dhaafi doono uu ka sheekayn doono hadhow toole iminka sanadkan ina soo dhaafay waxa caalamka ka dhacay dadka haddii ilaahay cimriga u sii dheereeyo taariikh buu geli doonaa sanadkani sida dadkeennii hore inaga waaweynaaba ay u sheegaan abaartii meel heblaayo abaartii heblaayo ayaan dhashay bay kuwan odayaasha ayay ku odhanayaan erigaa dhakhtare laguma dhalanayno taariikhna lama qorayn marka la yidhaha wardaadaadu adiga waa imise wuxuu anugu waxaan dhashay abaartii magaceedu daba dheer ahayd baan dhashay buu ku odhan sida abaartaasi taariikhda ay u gashay ayaa sanadkanna wuxuu geli doonaa sanadkii masaajidana la kala durqaayey gafuurgeliskana la xidhanayey gafuurgeliska ma taqaanaan waa maaska ilaa soomaalidu berigii hore laba go' bay wateen isticmaalkii wuxuu nagu soo kordhiyey waxa la yidhaha dabagelis waa surwaalka haddana wuxuu nagu soo kordhiyey garbagale wax la yidhahdo garbagale waa garanka sanadkanna waxa uu soo kordhiyey mataqaanaa gafuurgelis marka waa taariikh waa wax socdo weeyaan wax inakaa soconno waa wax meesha yeeloo soo marnay weeyaan adduunyadana marka ilaahay bani aadanka waxuu adduunyada u keenayba wax kale maaha waa in bani aadanka lagu ikhtibaaro weeyaan am xasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ما waxaad u malaynaysan baa Ilaahay yiri azza wa jalla ina sida uu jannad ku galaysan oo sida uu laynagu diinayo laynagu dhaafayo iyadoo aynan inagu iman kuwii inaga horeeyay dhibaatooyinkii ayakaba la soo darsay imtixaanadii iyakaba ku yimid imtixaan lamida iyadoo san inagu iman ma waxaad u malaynaysan baa Ilaahayna leeyahay inaad jannad sida ku galaysan masatumul ba'saa wad-darraa ummadihii adduunka soo maray waxa soo asiibto soo mari jirtay ad-darraa dhibaatooyin was-sarraa ya farxad ba soo mari jirtay dhibaata taabanaysay iyaka ayaa socday oo cimrigeeyaga ayaa socday laakiin dhibaatadu way taabanaysay darraa dhibaatadu way taabanaysay farxaduna way taabanaysay ilaa nabiyada iyo dadka raacay muuminiinta la ikhtibaaro oo la gilgilo
oo nebigii atbaacdiisu ay yiraahdaan goormuu ilaahay gargaarkiisu imanaya goorma ilaahay noo gargaaraya alaa inna nasra allahi qariib baa ilaahay alaa intabihu baraaruga ilaahay gargaarkiisu waa dhow yahay degdegina baa lagu yidhi adduunyadan markaa waa daar dadka loo keenay in lagu ikhtibaaro haddii awlaad lagu siiyey ikhtibaar baa lagu siiyey haddii caafimaad lagu siiyey ikhtibaar baa lagu siiyey haddii faqri lagugu riday faqriga ikhtibaar baa lagugu riday haddii qani ilaahay kaa dhigay deeqtoon qinada waxa lagu siiyey waa ikhtibaar haddii caafimaadka lagugu deeqay caafimaadku waa ikhtibaar haddii xanuun lagugu riday xanuunku waa ikhtibaar haddii nabad aad haysta nabaddu waa ikhtibaar hadday balaayo kula soo daristo cabsi meeshaad joogto ay ka jirtana ayaduna waa ikhtibaar mu'minka markaa isaga waxaa laga rabaa inuu noqdo qof mustaqiim calaa diin illaahi caza wajal ilaahay diinkiisa adu ku toosnow xaaladda timideen ayay ku bedelin xaaladda kula soo daristeen ayayna ku bedelin baa lagu leeyahay bini aadanka isbedilayna adigu ha ku dayan mujtamacuna ayuuna ku saamaynin xaaladda kula soo daristeen ayayna waxba kaa bedelin mu'minku waa caynkaas xaalad kula soo daristay xaalad la soo daristay mu'minka ma bedisho mujtamaca qofka bini aadanku uu dhex yimaadana ma bedeli karaa ninka mu'minka ilaahay ku xidhan khabaab allah raali ka noqday saxaabigaas waa raggii ugu horreeyey awaa'il man aslam raggii ugu horreeyey islaamay buu ka mid ahaa ee maka lagu cadaabayay cadaabka la cadaabay heer waxa la gaadhsiiyey dhamac qoryo intoo la shido qoryihii dhamac ay noqdeen ayaa isaga intoo dharka laga saaray dhabarkiisa intoo la qabta sidaa loogu seexiyey wuxuu yidhi fuuqii jirhkayga ka baxay baa dabkii